kan waa sawir dareenka turjumayo waxaan iri markaa xaqiiqdi naftayda markay xasisho waxa ku xaq leh xilligeedii adkaa qofkii xafido xajiyo dhawray. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحاب تشرفت بان سو دواad markale ku soo dhawaada muuqaal kale iyo walaalkiin saaxiibkiina Ismaan Wasow abwaan horta xalqa wada ma aha kan oo waxay doonto baa ahaato aniga abwaan isugu ma yeerin waligeena isma dhihin in maaragtay waxaan jira dad oo saddexdo sadar oo maaragtay isku toosan iyo saddex kale oo qubqacay markay qoraan dhahay aniga abwaan ahay marka yani hadda waa say qoray tabna ahaan si aan uga dhigo laakiin waxa jirto ها inaan maaragtay qori jiray erayo isku aadantay waxa rabaa marka muuqaalkan maanta inaan idin kula wadaago maadaama dad adinka idin ka mid ah oo aad u fara badan aysan ogeyn erayo inaan qoro ilaa iyo tix dheer ama silsilad ama waxyaabahaas waan qori jiray laakiin special occasion ahaan oo qori jiray wax oo gooni aniga aan ugu talagalay ahaan u sameyn jiray laakiin hadda ma sameeyo waxaan u maleynayaa markii ugu dambeysay oo tix aan qoray oo maaragtay aan soo jeedinay aan sameeyo waxay ahayd 2017 maruu qarax dhacay muuqaal aan ka sameeyay channelkan soo galshay meelaha aan soo dhigi doonaad ka daawan kartaa taas ay ugu dambeysay macnaha inta buug iyo qalin aan isku qaato ama wax kaleba oo aan qoro erayo isku aadan marka kadib maaragtay waan ka wada wareegay gabi ahaanba so dad badan jiro maaragtay meelahaas ku fiican oo yani ayaga markaas si fiican inay sii wadaan marka waxaan sameyn jiray Facebook oo kale ama Instagram meel ay noqotaba waxaan sameyn jiray marka sawir oo aniga ah aan kadib waxaan ku qori jiray marka erayo marka sawiradaas qaar kamid ah iyo erayada ku qorna arba marka inaan la wadaago soo dhawaada kan ugu horeeya aan ka bilaabayna waxa waaye sawirkayga ma ahan laakiin sawir oo maaragtay diamond ama diamond oo dhul yaalo ayaan soo qabtay oo waxa markaas ku dul qoray diamond ku waa qaali daraar walba hadiise inagoon u dhibtoon horteena la soo dhigo dhulka aan ku aragnaa intuu inooga dhignaa uu ka hoos dhacayaa waa faanteen u maleynayaa macnaha wax oo maaragtay ma ahan ama meel kale aan ka soo koobiyay ama aan ka soo qaaday ma ahan maskaxdeeda aan ka keenay aan ku qoray waxaana markaas aad u muhiim ah inaan xuso anoo iska fadhiyo kaliya waxaan ugu soo dhici jirin oo maaragtay xaalad ahaan oo kale markaan u dhaxgalo oo aan dareemo ayaan qori jiray tan marka waxay ka dhigan tahay diamond wax walbo adduunka u qaalisan yani qofka hadii uu si sahal ah oo isaga helayo qiimo lama lahaanayso يعني قفك هذا أديك أديس الدنيا هالكاس قف هذا مر لك كل من الله هذا أديسه هدي درس لك عكسه دقيقة أم سكجوري أتكون على تندي عادي كل نقطة of course next one إليس كذا الدنيا ذا أكت هذا هدوجرين قفك لا إفسنا يه وقلوا سداته أدنت هذا وإيمان يعني وهسحته الدنيا وريجا maradu ku siina mar qof kala saaxiibka u siina laga yaabo maanta inaad jamato aad istiraahdo ay qofkaas amal hada ahaan lahayd laakiin qofkaas wax bari ku dhici doona ma ogid waxa uu yahay ma ogid in oo maaragtay maanta duu sheekh yahay bari ilaah ma tusay yani tawfiiqda ay kala mid doonto maaragtay kala noqonay ma ogid marka taada iska suugo taada u shaqayso faanteen maleynaya okay waan ka sii gudbeenaa kan waa sawir oo kala dareenka turjumayo waxaan iri markaa xaqiiqdi naftayda markay xasisho waxa ku xaq leh xilligeedii adkaa qofkii xafido xajiyo dhawray fahmt waxa waade yani nolosha dadka isku mid maahan qofba maanta wax buu haystaa beri ma haysto inta badan markay noqoto marka يعني أما جورك أما وحيابها سيو كلا مركي نقطة يعني قفا وحلاقي على صور كمان تلاقيه هستو إن لو ديدو أما إن غيرك أي ديدان أما إن جبلو ديدو أما إنه إساق لفت الكيسة يسعق ضايو وحي نقطة بقى مركا وحنا ليه كلام مركا ده ضدك قار يعني وحبا كل حجرو أذيك loo baahan yahay marka inaad ka soo saaratid qofkii maanta adiga sida aad tahay hadii ay xaaladaada liidato ama si adiga ay wax ka yihiin qofkii sidaas kugu xafidanayo oo ku ilaashanayo oo ku yani ku dhowranayo
qofkaas hadhowdii marka adiga wax noqotaana marka kuwa xaq leh ee ka dhigan tahay. Next one. Okay, tan waa sidoo kale aydana waxaan u maleynayaa sawir asna waa bad badda maxaa ugu badan tahay dhina yaraa lahada badda waa iska jeclaa haddaan jaanis ku helo waxa waaye laygama agweynay. Okay, kanna waxa waaye waxaan ku qoray ixtiraamka qofeed agtiisa ku leedahay awood kuma keentid inaad ogolaanse eray xun ku gaaro mid adiga leh. tan waxaan u maleynayaa inaan ka soo koobiyay يعني هذا الانجليش او ميل ku qoran يعني qofka kuma qasbi kartid in uu ku fiicnaado laakiin يعني inaan lagu disrespect gareyn adiga iska leh adiga sameyn karo macnaha qofna ha u ogolaan inuu marka ixtiraam inuu qofku ku ixtiraamo adiga qasab uguma keeni kartid laakiin adigana inaad isbahdilin ama nafsadaada disrespect ku sameynin adiga ogolaashada leh waan ka gudbeynaa. Okay, midkan laakiin qoraal caadi aan ku dul qoray oo wuxuu ahaa post ahaan aan u raacay Facebook waxaan iri adoo fara maran isfaaxi adoo fool xiran isfurfur adoo fikiriyo dhibkiisa adoo ku fogaaday dabagooy markaad fajacdood wareerto ficil hala boodin adigoon u fiirsan hubaaleynta ha fujin nabaraan bogsoon ha fiiqin maqaar fayow hadday foos wareerto maanta marbay fixiyo agtaada imaan farxadii nagaatee xushmadaada la u feejignaw. يعني وفصيلات kale uma baahnaan u maleynaa kuleetan waad wada qaadateen laga yaabo inay wax ka qaldayihiin qaabka ay u sameysayeen waxyaabahaas aniga abwaan ma ahaan jirin mana ku doodaa inaan ahay يعني wixii markaas aniga ee la noqoto aan sameyn jiray ama aan qori jiray. Next one. Okay, kana waan socdaa sawirka angalka uu yahay aad iyo aad u qurux badan yahay waliba xitaa sawirkan aniga iska qaaday waan xasuustaa waxaan isaga qaaday sawirka meel dhigay telefonka self timer saartay waan ku dhuftay under exposure aan ka dhigay xoogaa maaragtay dramatic feeling camal aan ka dhigay qoraalkan aan ku dul daray marka qoraalka wuxuu yahay dhinacyada adduunyada qof baa ka codaraartii subaxiina dheelmado waliba dhib ku soo hela dhuunig iyo wuxuu cuno qofna dayman isagoo dhulka uu ka helay buu dhiiqada ku tuuraa. Wow, يعني xogaa daymankii ku soo laabanay laakiin waa fahmi kartaan u maleynaa يعني qofna waxa adiga aad u soo dhibtoonaysid inaad soo hesho mar una aad gaarto oo iska heestaayo haddana uusan daneynayn ka dhigan tahay marka waa fahanteen maleynaa. Next one. geesigu waa kan marka la isla garto garab la isku siiyo gaadmada lala eegto isagoon garanayna gardaro lagu maago goonida loo saaro gidaarka ku ooyin macnaha geesigu waa kan oo yani intaas dhan marka la sameeyo oo aan gidaarka ku ooynin guntiga xirta oo dadaal dheeri galo gooynin rajado guushana u dambeeya. Wow, ma maqlaysin ama malena wax ku qaataya iska kabto معايا laakiin yani hadal walba waan idin sheegay aniga sawiradan xilli walba aniga aan qoraayay waxaanay oo kale aan sameynayay iskama imaaneen wax un bay ku imaanaysay waxay ku imaanaysay dareen dhab ah ay ku imaanaysay marka inaan waxa aan ku qoro marka geesigu waa kan marka la isla garto garab la isku siiyo gaadmada la eegto isagoo garanayna gardaro lagu maago goonida loo saaro gidaarka ku ooyin guntiga xirto oo dadaal dheeri garo gooynin rajado guushana ku dambeeyo guushaad ku dambeynaysa marka hadii saaxiib xun ay yeelatid hadii qof uu ku qalbi jabsho hadii ma aragtay adiga la isku ka tago hadii garab la iska kaasiyo dhinaca lagu tuuro ha ooynin haraja dhigana cala calin ka guushana adiga ku dambeynaysa. Next one. Theater aniga sameynaa qof walba waxa la dhahay riyadaadu maxay tahay aniga marka riyadaydu waxay tahay aan dhahay يعني idea ama fikrad ama waxa aniga aan keenay oo aan arko inay naf badbaadinayaan inay nolol badbaadinayaan inay dad wax u tarayaan waana sababta oo yani aniga aan ku doortay aan ku jeclahay in yani film sameeye inaan noqdo sababtoo ah hadii film aan sameynaysid film adiga aad sameysay ama waxa sameysay hadii dad adiga aad tustid oo wacyigelin ay u noqoto qof wax sameyn lahaa oo kale inuu isaga daayo qofkii waxa lagu sameyn lahaa inuu ku nabad galo waxay noqonaysaa waxa aad iyo aad u qurux badan marka taas oo kale marka ka dhigan tahay marka waxaan riyadayduna waa inaan noqdo ruux rafaadkana haysta rarida bixintiisa ka riixo dhankiisa ra'yigu la yimaadana ku raysta dadkay allow ii rumay
آمين يعني ولي وضدي أن كسرعة وأنك قد بينام waxaan xiranahay macwiis waxaan fadhiyaa guri dabaqa korkiisa aan fadhiyaa buug iyo qalin aan haystaa waxaan qoray markaan waxaan iri adduun qalibmo toosayn qumaati marbuu hagaag qotomaa wixii ku qabtaa qof baa heliye qaado qalin oo meel ku qoro yani adduunyada haday maanta kula qaribantahay si ay kula tahay marun bay toosi doontahay xaaladda markaasi aad tahay qoro oo meel dhigo haddii adiga aad dhimato xitaa qof hadhowdii helayo markaasi ku intifaacsanayo afantay malayna intaasay ahaayeen marka sawirada aan rabay inaan idila wadaago run ahaantii sawiro kale iyo qoraalo kale iyo waxyaabo kale oo fara badan oo dheer oo aan qoray jiraan waliba ayagana xaalad un ku yimaadeen haddii aad jeceshihiin ama muuqaalkan inaad ka heshaan aan dareemo insha Allah qaarkooda fara badan aan idila soo wadaagi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin inta muuqaal kale aan kulmayno walaalkiin saaxiibkiin oo idin leh nabad ahada